kusoo dhawaada warka maqal news. saddex toogasho oo kala duwan ayaa la xaqiijiyay in magaalada Uppsala toddobaadkii la soo dhaafay ka kala dhaceen. Booliska ayaa hadda ku xoogan ka shaqaynta arrintaasi sidii ay u soo baari lahaayeen dadkii ka dambeeyay. Si dhab ah ayaan u xaqiijinaynaa ayuu yiri afhayeenka booliska gobolka Jonas Erenon. Fiidnimada Arbacadii booliska waxay heleen qeeladaan ku saabsan toogasho ka dhacday Buurta Sala. 2 maalmood kadib toogasho kale ayaa ka dhacday Xavier. Toogashada Xavier ayaa walaac badan muujisay waxa ayna ka dhacday goob ay aad dad ku buuxaan iyadoona caruur ay ka agdhawaayeen goobta ay ku ciyaarayeen. waxay muujinaysaa naxariis darrada guud ahaan dambiilayaasha ayuu sii raaciyay Jonas. Rasmus Paludan ayaa racfaan ka qaatay go'aanka ay booliska gobolka galbeedka ka diideen ama ay ku diideen codsigiisa in maalinta Jimcada ay soo socoto quraan ku gubo magaalada Borås. go'aanka booliska wuxuu ku saleysan yahay rabshadii halista ee dhawaan ka dhacay dalka iyadoona qayb looga dhigay diidmada codsigiisa. maxkamadda maamulka ayaa hadda doonaysa in ay go'aan ka gaadho farka Rasmus uu ku doonayay in uu mar kale kitaab quraan ku gubo dalkani. ugu dambeyn 100 ruux ayaa ka qayb qaatay rabshadii ka dhacay Landskrona iyadoona ay u badnaayeen intooda badan wiilal dhalinyaro ah. wiilal aad u tiro badan ayaa ka qayb ahaa rabshadii isbuuciin dhaafay ka dhacay magaalada Karlslund. hadda waxaan u baahanay in aan sida ugu dhaqsiyaha badan aan u qiimeeno ayay tiri Katarina Lever oo ah maamulaha magaalada Landskrona. wiilal ay da'dooda ka yartahay 12 sano jir ayaa ka qayb qaatay dhagax tuurkii ka dhanka booliska magaaladaasi ee Sabtidii ka dhacay magaalada Karlslund sida ay sheegtay taliyaha booliska deegaanka Tina Andersberg. TV-ga SVT oo goobta jooga ayaa goobjoog ka ahaa sidii wiilashaas yaryar ay u ilaalinayeen dab laga soo aruuriyay ama lagu xireeyay wadooyin ku yaala deegaanadaasi. ma jirto wax ay sameeyeen. mas'uuliyadda waalidnimo waa mid weyn, tanina waa guuldaro xagga daryeelka ah ayay tiri Tina. warkaasna waxaa idiin soo tabinaya aniga oo Maxamed Ibrahim ayaan leh. halkaad ka daawanaysaana waa Maqal News. nabadgelyo.